naagtana u jeediin gurigeeda markay timaaday si saa'iday u argagaxday kadib midkood la socday intay qabatay sariirta si xoog ku hoos gelisay sababtana wax kale ma ahan waxay aragtay saaxiibkeeda oo ubax iyo faraanti sariirta ugu sii kor diyaariyay ubaxiye soo dabaracday si uu aragto meesha uu geenayo siday u soo socotay albaabay soo furtay waxayna arkaysaa midkii saaxiibkeeda ahayo hoosh gacanta kula jiro ubaxna diyaarinayo wuxuu ku dhahaa goorma soo dhaqsatay lama filaan inaa ku sameeyaa rabay waaba igu dul timaadee intaasna wuxuu u raacinaa dhib ma laha hadda haddii aad timaaday dharkaana kuugu talagalay waxaa rabaa inaa isku fiiriso waxay u sheegaysaa inay musqusha aadayso dharkaana isku soo fiirinayso meeshan oo sii jooga isaga markii ay dharka soo gashatay intay soo baxday qolkii dib ugu soo laabanaysaa waxayna u imaanaysaa midkii sariirta ku hoos jiray arrinta way fiicantahay ku dhehaysaa faraantigiina way gashanaysaa saaxiibkiina waxay u sheegaysaa inay ka aqbashay midkaana waa kan isagoo arrintaas si kal iyo laab ugu faraxsan wuxuu ku dhahaa arrintan oo dhan waa duubay meeshaasna kaamira ii taalo kadib waxuu soo qabsanaa kaamiradan oo wax walba ku duubay kadib iyada iyo midkii sariirta ku hoos jiray maalin ay joogeenna waxay ku noqotay hamiin intay ka daftay waxay ku dhehaysaa adiga ma waalantahay muuqaalka hore miyaa ka daawanaysaa saacadda camal lama daawado waxaa la daawadaa maalinta arooska midkaan oo xoogaa maskiin iska ah inuu ka ogolaana wuxuuna arrintaas u arkaa mid weyn intaas kadib markii uu guriga ka tago iyada iyo midkii sariirta ku hoos jiraa waxay bilaabayaan inay duubaan muuqaal kale maadaama uu midkii miimariga qaatay waxay rabtaa inay u beddesho marka uu guriga ku soo laabto laakiin arrinta dhibka u keentaa waxay tahay meeshana waxaa taallay dhalo haddana way ka maqan tahay wax badanay fikirayeen ugu dambayn midkaana qadka ka dhex raadinayo dhalada mid u eg ugu dambayn way heleen tukaani intay soo aadaan gabadhii joogta waxay ku dhahayaan bahasha camal aa rabnaayo ma heesaa kuwaa nasiib xumadii ay ka bateen bahashaas hal xabaa ka taalay halkii xabana naag duqaha ugu hormartay waxay ka codsanayaan inay bahasha siiso laakiin iyadu way ka diidaysaa waxayna u sheegaysaa bahashan inay wakhti aad u badan raadinaysay ugu dambayn markii ay wax walba ku kari waayeen waxay ku dhehaysaa waxaa ku siinaynaa $500 bahashana si muuqaala ku duubanaynaa waanu kuu soo celinaynaa waxay taagan tahay baashii waa iga jebinaysiin ma idinku aaminayo waa idin dabaraaca ugu dambayn dhalada meesheedii way ku soo celiyeen duqdana waxay taagan tahay haddaba waa kuu sheegay jabyar haddaa ka jebisid waa gadee iyaduna waxay ku dhehaysaa waa ogolahay orod bannaanka igu sug muuqaala ku duubanaynaa meeshaane waa kuwaana iyagu bilaabeen muuqaalka inay duubaan duqduna waxa meesha ka socdo dhan ma fahansano waxaa la gaaraa maalintii arooskoodu dhici rabay maalintii ka horreeday midaana saaxiibkeeda maqaayad ku ballamiyey midkaana muusan ka yeelin wuxuu go'aansaday inuu soo dabaraaco isagoo weytar iska dhigaayo ugu dambayn meesha waxaa soo gaarayay midkii saaxiibkeeda ahay waxaana la socday duqdii maadaama eedadiis tahay waxay taagan tahay gabadhan wejigeeda meelaa ku arkay waa igu yaalaa ma laga yaabo inay caan tahay tiifigii ku arkay kadib midkaan dadka arooskiisa ka soo qaybgaloo dhan wuu wadaa wuxuuna geenaa qol oo sii diyaariyey intuu soo istaago wuxuu ku dhahaa anigay gabadhan waa isguursan rabnaa haddana waxaan idiin shidaa muuqaal meeshaan ku jiro markii ay arooskayga aqbalaysay waa kan isagoo soo fadhiistay oona muuqaalka dadku u shiday laakiin markii uu muuqaalku meel dhex maraya si kadisa waxaa uga soo dhex muuqanaya markii ay muuqaalka duwaayeen intuu soo istaago wuxuu ku dhahaa arrintan hala yaabinina waxaan rabay qoftan khiyaanadeeda inaan idin tusiyo eedadiis meesha fadhiisa u mahadcelinaa maadaama muuqaalkan ay iyadu u soo duubtay intaasna dadka wuxuu u raacinaa midkii kaamirmaanka muuqaalka ka ahay waa kasaa muujidiinoo wuxuu iska dhigaa weytar markii uu meesha isaga tago midaan waatan iyadoo ku dhehayso sug anaa ku sharaxayo wax walbo anigana youtubeka brofaylka saarana joogaa igu soo booqda muuqaalkan intaasoo ku ekay hadda halkaasuu gaarta lagnoosaha gabadhan derbijiifta iyadoo hambeegar iska cunaysay hal mar waxay dareentay in wax bir ah ay cunnada u raaceen waxay arkaysaa waxaas inay ahaayeen faraanti qaali ah oona qadiimi u muuqdo wax yar ka hor ninkaana faraantiga hambeegarka dhex geliya isagoo raba qoftan oo saaxiibadiis ah inuu lama filaan uga dhigo laakiin howshiisa waxaa ka qasay midaan derbijiifta ah iyadoo ka codsatay inay cunto siiyaan midaan gabadha marka koowaad way ku qaylisay marka labaadna hambeegarkeeda teesisay waxay ku dhehaysaa hal mar le ma naga tegi kartaa midkaana isagoo ka walwalsan in howshiisa laga qasay midaan waxay ku dhehaysaa caadi waaye iska day anigaa dalbanaya mid kale isaguna ugu dambayn wuxuu u sheegaa in faraanti uu ku dhex jiray hambeegarkaas uuna raba lama filaan inuu iyada u sameeyo iyaduna markay hadalkaas maqashay intay si saa'ida u faraxday waxay ku dhehaysaa maxaa u taagantaa nakeen waa ka daba tegaynaa waa ka soo qaadaynaa laakiin isagu wuxuu u sheegaa inuu isagu ka doonayay iyadu iska joogto iyadoo aad u faraxsanay waxay wacaysaa midkan oo ah midko ay isla wataan qorshe aad u weyn markii uu taleefka ka qabtay waxay u sheegaysaa war farxad leh oo ah in saaxiibkeeda uu guur u soo bandhiga rabo sidoo kale waxay u sheegaysaa inuu hadda u yimaado aan u soo laabana markii ay midaan faraantiga cunnada ka dhexelaysay iyadoo aad faraantiga ugu farxi rabtay haddana waxay soo xasuusanaysaa wax islaameed inay xaaraan yihiin saaxiibkiina waa kana isagoo ka quustay inuu iyada soo helo kadib midda derbijiifta ahayd si lama filaana waxay u arkaysaa oo ayna u maqlaysaa labadan oo qorshe aad u weyn maleegayo markii uu midkan u yimaadana midkan kale wuxuu iska soo jaraa marwey iga raali noqo qoftaa sheegaysa ma arkin markii arka waa kuusoo sheegaa wuuna iska baxa kadib midkan saaxiibadiis wuxuu u sheegaa inuu soo waayo qoftaas meel walbana uu ka raadiyey waxay weydiinayaan haddii aad weysay faraantigaas guurkeenna ma hor istaagaya soo maahan wuxuu ku dhahaa faraantigaas aad uu muhiim iigu yahay sababtoo ah waalidiinteyda 100 sano iska soo dhexlaayeen dhinaca kale midii derbijiifta ahayd waxay u imaanaysaa midkoo saaxiibkeed ah oo isaguna derbijiif ah
waxay u dhiibaysaa faraantigii waxayna u sheegaysaa faraantigan inuu muhiim u yahay oona u sii haayo. kadib intay soo baxday si kas cad ah waxay u soo agmareen labadii faraantiga raadinayeen. intay istaajiyaan midkan wuxuu weydiinaa ma aragtay faraanti ku dhex jiro hamburgerkii aan markii ku siinaynay. waxay ku dhehaysaa faraanti ma arkin ee ma laga yaabo anigoo ogeyn inaan laqay. sababtana waxay ku sheegayeen in gaajo saa'id ay haysay ayna cuntada boobsiis ku cuntay. kadib midkan wuxuu ku dhahaa waxaan hayaa qorshe aan faraantiga calooshaada ku jiro kala soo bixi kara ka warane. intay soo wadaanay waxay keenayaan gurigooda si ay faraantiga ee laqday u soo dhasho. dhinaca musqushay u tilmaamayaan laakiin iyadu musqusha ma gelayso. intay soo laabatay midkan si qaas ugu imaanay. waxay u sheegaysaa inaysan faraantiga laqin laakiin ay u dhiibtay qof ay ku kalsoon tahay. dhinaca kale midaan meel luuq ay soo gashay waxayna wacaysaa midka ay qorshaha isla wateen. waxay ku ballaminaysaa inuu gurigeeda yimaado wax yar kadibna waa kana wuu iskeenay. waxay u tilmaamaysaa inuu ku dhunto meel guriga ka mid ah wakhtiga ugu muhiimsan oo soo baxo. wax yar kadib ninkeeda intay u timaaday waxay ku dhehaysaa waxaa kaa rabaa waraaqadaha si kalsooni ku jirta inay igu saxiixdo. isaguna waraaqadaha ma iska akhrinayo isagoo ilaalinayo qoftan kalsoonideeda. si lama filaana midaan intay kasoo dhex gashay waxay u sheegaysaa inuusan waraaqadaha saxiixin. iyaduna waxay taagan tahay qoftan way soo waalatay ee howshaada wado. isla wakhtigaasna waxaa gurigooda soo gaaraya midkii derbijiifka ah ee faraantiga loo dhiibaayey. midkaana shaki intuu galo waraaqadaha akhriyay wuxuuna ogaanaa qoftan inay rabtay gurigiisa iyo lacagtiisa dhan inay la wareegto. midkaana wuu soo baxay si uu saaxiibadiis ugu soo hiiliyo laakiin waxaa qabanaya midkii kale ee derbijiifka ahaay. midii kalena qoftan intay qabato midkan wuxuu taagan yahay aniga wax dhan ma fahmin ee hawshan ifahansiiya xaaskaygana iisii daaya. midana waxay ku dhehaysaa anaka derbijiifyaal ma nihin ee waxaan hanay askar. qoftan iyo midka la socdana waa tuugo aad u waaweyn. war kuwaan 4 waddan oo kala duwan taajiriintii joogay soo xalfiyeen ka warane. ugu dambeyn midkan wuxuu ogaanaya in nasiibkiisa uu badbaadiyey. wakhti kadib midaan askariyada waatana iyadoo midkan faraantigii dib ugu soo celinayso. ugu dambeyn muuqaalkeena intaasoo ku ekaay ee hadda halkaasoo gaarta leegnoo saar. gabadha muujidiin waxay guursatay midkoo shiid ah kadib guriga aabbaheeda dib ugu soo laabatay maadaama isaga kasoo tagtay ayna is soo dagaaleen. aabbaheed wuxuu ku dhahaa waa sii ogaay in waxaan kugu soo dhacayaan soo ma ku dhihin gurigan iska joog wax walba waad ka helaysaa. dhinaca kale midkii waa kana isagoo ka fikirayay siduu qoftaas ku soo ceesha lahay kadib waxaa ku soo dhacayo qorshe waali ah. hooyadiis oo waayeela intuu u yimaado wuxuu ku dhahaa waa inaad raadsataa guri ay leeyihiin dad taajiriina si aad shaqo ugu hesho. anigana aan lacag kaaga helo si aan xaaskayga u soo ceshto. laakiin iyadu waxay ku dhehaysaa ilaa iyo intii aan intaa kula soo ekeysiinaya soo shaqaynaya waa daalanaha waa inaan nastaa. wuxuu ku dhahaa haddii aad arrintan diidid ma sii joogi doontid gurigan waa kaa buri doonaa. iyaduna maadaama aysan rabin wiilkeedu inay ka tago way iska baxee. dhinaca kale midaan iyadoo aabbaheeda iskala sheekaysanaysa albaabka lagu soo garaaca markii ay furtana waxay arkaysaa midkaan oo rabo inuu dib u ceshto. aabbaheeda wuxuu ku dhahaa gabadhaydu meeshaan ma ka tegayso mana kuu raacayso godka adiga ku nooshahay. wuxuu taagan yahay arrintaas ka walwalin hooyaday guriga way ka tagtay shaqayna bilowday labadeena keliya ku soo harayno. laakiin odagu ma ka yeelayo wuxuu ku dhahaa adigu waa inaad shaqaysaa aana siisaa gabadhayda wax walba ay u baahan tahay. isaguna markuu arkay inuusan kuwaan wax ka qaadin wuu iska tegaa. aabbuhuna gabadhiisa wuxuu ku dhahaa waxaad u dhaqantay sidii inay nimanku magaalada ka dhammaadeen waxaana dooratay midka ugu darnaa. dhinaca kale hooyadii waatanaa iyadoo u timaaday midoo saaxiibadeeda oona uga sheekaysa wixii uu wiilkeeda soo sameeyey oo dhan. midaana waxay la yaaban tahay markii ay sheekadaas maqashay iyo waxay qoftan u sheegayso. hooyaduna waxay intaas u raacsiinaysaa inaysan guriga dib ugu laaban karin iyadoo aan shaqo helin. midaana ugu dambeyn waxay u ogolaanaysaa inay gurigeeda ku nasato iyadoo iska dhigayso inay shaqaynayso. midkii isagoo guriga joogaa qoftii ka tagtay dib ugu soo laabatay ma soo laabatay marka uu ku dhahana waxay ku dhehaysaa waxaa wataa hal shuruud. markii uu weydiiyey shuruuddaasna waxay u sheegaysaa inay rabto inay iyadu guriga ka tagto ama hooyadiis ay guriga ka tagto. isla markaas ay sheekaysanayeen hooyada guriga dib ugu soo laabatay midaan uu isxanaajinayay. midkaana hooyadiis wuxuu ku dhahaa haddii aad shaqo heshid meesha shaqada ku noolaa waxa ka soo tegin macnaha. ugu dambeyn hooyada waxay go'aansatay gurigeeda inay uga tagto wiilkeeda. kadib iyadoo dharka shaqaalaha wadatay guriga saaxiibadeed dib ugu soo laabatay waxayna u sheegaysaa in xaaskiisii ay u soo laabatay sidaasna u soo buriyey. saaxiibadeedna waxay ku dhehaysaa wiilkaadu waa nin weyn wuuna ka weynaaday xilliga aad ka fikiri lahayd adiga. intaasna waxay u raacinay wuxuu guursaday isagoo aan shaqo haysan kadib xaaskiisuu gurigaada keenay adigana wuu ku soo buriyey si aad ugu shaqaysid. asbuucyo kadib midaan mool ay ka soo adeegatay waxayna ku soo adeegatay lacagta aabbaheeda. iyagoo meel dhex maraya waxay arkaysaa dhar ay aad u jeclayd kadib midkaan waxay ku dhehaysaa markaaga waayo waa inaad gaddaa. isaguna wuxuu u sheegaa been ah inuu shaqeeyo lacagtiisana aan weli la siin asbuuca dambena la siinayo. wuxuuna ku dhahaa aniga mushaarkayga iyo hooyadii mushaarkeeda waa isku darsanaya wax fiicanana kusoo gadanee. laakiin iyadu ma yeelaysa waxay taagan tahay waxaa tahay mid ka daran wixii uu aabbahay sheegayay. aabbaheeda intay wactay waxay ku dhehaysaa moolka ma iga soo dooni kartaa midkan waa soo kala dhammaana waana ka soo tegey. maalmo kadib wuxuu imaanaa guriga hooyadiis ay ka shaqaynaysa maaqa qof soo sheegee. wuxuu ku dhahaa bisha way dhammaatay guriga kiradiisana waa la rabaa marka soo bax guriga kiradiisa bixi laakiin iyadu way ka diiday. waxay u sheegaysaa inay lacagta bixi lahayd keliya haddii gurigaas iyadu ku noolaa lahayd. isla markaas midii guriga laheeda imaanaysa waxayna u sheegaysaa inuu meesha isaga tago intaysa booliska u wicin. maalin isagoo meel iska maraya kuwa tuuga inta qabtaan waxay isugu darayaan inay baartaan iyo inay tumaan. ilaa ugu dambeyn hooyadiisa ay soo heshay eena keentay gurigii ay ka shaqaynaysay ee saaxiibadeed.
kadib wuxuu ka codsanaa inay iska cafiso maadaama markii ay kasoo tagtay oo waayo wax walba oo hore u haystay. hooyadiisna waxay ku dhehaysaa waxaas taa cashir ka baratid hadda ma shaqaysane. saaxiibadayna waxaa kula heshiiyey inaa uga shaqayn doontid beerteeda. isaguna arrintaas wuu ku farxaa inuusan ku ceebay doonin wuu u sheegaa muuqaalku intaas ku ekaayad halkaasoo gaarta leegnosa. ninkaana u jeediin hooyadiisoo taajirad aheedaa ka dhimatay. midkoo hooyadiis u shaqay jira wuxuu ku dhahaa waxaa ku soo dhawaataa naagihii hooyada iga kaala dardaaranta inaa kuu guuriyo. kadib intuu yaabo meel gees ula soo baxaa wuxuu ku dhahaa naagaha aswaradooda itusta dhallinyari ahaayeen maxaa waaye duqahan. wuxuu ku dhahaa waxaas inta ka baxday naagahan duqaha mid ka dooro hooyada waxay ugu dhahday dhaxalkayga waxaa sii kartaa haddii uu mid doorto. isna waa kanaahay isagoo qanacsanayn oo iska ogolaana maadaama dardaaranka hooyadiis ay tahay. intaas kadib duqaha waxaa loo qabanaa tartan kala duwan waxaana lagu bilaabaa tartanka cunnada. midkiina waa kanaa isagoo dhadhaminaya cuntooyinkii ay soo kariyeen laakiin waxaas dhan u cadda lacagta u cad keliya. cuntooyinka ay soo kariyeen dhammaantood ma ka helayo waxaana u sheegaa inay u gudbiyaan tartanka xigo. midkan wuxuu taagan yahay tartanka xigo waa taalantiga ay duqaha leeyihiin waana ka heli doontaa. duqdana waxay bilaabaysaa inay ciyaarto maadaama taalantigeedu yahay ciyaarta inay ku fiican tahay. meel dhexa iyadoo maraysaa dhabarka xanuuna maadaama ay tahay waaye lagu dhahay taalantigaaga ciyaarta soo bandhig. duqdii ku xigtaa intay timaaday waxay dhehaysaa aniga taalantigayga waxaa waaye sida dharka loo sameeyo. meeshana waxaa ku jiro dhar aan adiga kuugu talagalay si qaasana gacantayga kusoo sameeyey. intaasna waxay u raacinaya haddii aan isguursano dhar khataraha kuu diyaarinaa maalinta arooska. isna waa kanaahay dharka intuu fiiriyo iska gudbinaa wuxuuna u sheegaa duqda ku xigta inay imaato. midkii isaga hooyadiis u shaqay jira wuxuu ka helaa dharkan ay duqda soo samaysay xoogaa kadibna waxaa imaanaa duqdii kaloo heesayso. mar kale midkii hooyadiis u shaqaynaya wuu ka helaa duqda siday u haystay laakiin isagu ma ka helayo meeshan xanaaq dartiisa uga soo tegaa. intaas kadib waxaa la gaarayaa xilliga ay duquhu isaga mid ula sheekaysa lahaayeen midii dhabarka xanuunayana waatan way soo socotaa. intii ay duqdaa soo socotay duqdii kale u imaanaysa waxayna u sheegaysaa inay u ciyaarayso mar kale haddii uu rabo. duqdii kalena waatana way u timaaday xoogaa badan ay sheekaysanayeen waxaa imaanaya midii dhabarka xanuunayay. laakiin isagu waxa u sheegaa inuu dhammaaday wakhtigii lagu talagalay. intaas kadib waxaa la gaarayaa xilligii uu ubaxa sii lahay midii uu doortay. isaguna wuxuu bilaabaa inuu tiriyo midii uu ku soo aado nambarka oo rabana uu doorto ugu dambayna midaanu doorana wuxuu ku dhahaa lacagtii igu soo wareeji iyadana ubaxa sii. laakiin midkan wuxuu taagan yahay si aad dhaxalka u qaadatid duquhu waa inay aqbalaan soo jeedintaada. intaasna wuxuu u raacinaa duqaha maahan kuwa guursanaysid ee iyagu waa hooyooyinka gabdhaha aad guursanaysid. intaas kadibna midkan wuxuu bilaabaa inuu u yeero duqaha gabdhihii ay dhaleen. marka hore waxaa soo baxaya 2 gabdhood isaguna wuxuu ku dhahaa labadan gabdhood waa 2 gabdhood ay dhaleen duqihii aad diiday. haddana wax yar kadib waxaa soo baxaya gabar saddexaad oo ah gabadha duqdii oo doortay. kadib waa kanaahay midkan isagoo ku faraxsan inay gabar qurxoon ku soo aaday tirada oo tiriyeen uusan ku khasaarin. duqdii oo ubaxa siiyey intuu ka soo qaado gabadheeda ku wareejinaa. laakiin iyadu waxay uga naxsanaysaa maanta dhan waa ku daawanaynay sida oo hooyooyinkeenu ula dhaqmaysay iyo wixii ku samaysay. intaasna waxay u raacinaya hooyooyinkeenu waa saaxiibadii ugu dhawaayay hooyada. haddii aad hadda sidaan u dhaqmaysidna hadhow sidee u dhaqmi kartaa ubaxii uu siiyana dib ay ugu celinaya weliba isagoo rifrifan. kadib isagoo xanaaqsan oo midkii hooyadiis u shaqaynaya kusoo jeesanaa wuxuuna ku dhahaa adiga waa i qiyaantay. isaguna wuxuu u sheegaa inay waxaas aysan khiyaano ahayn laakiin ay tahay dardaaranka hooyadiisa. wuxuuna uga naxsanaa hooyada waxay ka dardaarantay haddii arrintan ku fashilanto inaa saaxiibadii duqaha lacagta u qaybiyo. lacagtaasna waxay gaaraysa qiyaastii 12 milyan isaguna wuu yaabaa duqahana waxay bilaabayaan inay dabaaldegaan. ugu dambayna muuqaalkeenu intaasoo ku ekaa iyo hadda halkaasoo gaarta leegnoosa. soo dhawaada wiilkana u jeediin wuxuu soo watay gabadhan oo ah saaxiibadiisa laakiin isaga hooyadiisa ma ka helayso qoftan. dadkii maqaayada joogay oo dhan oo soo fiirinayay waxay bilaabaysaa inay gabadha ku eedeyso inay u socoto wiilkeeda lacagtiisa oo keliya. wiilkeedu intuu arrintaas ka xanaaqo wuxuu ka codsanaa inay gabadha raali geliso laakiin iyadu waxay ku dhehaysaa adiga ma ii fahmaysid qoftan inaa kaa difaaca keliya raba aniga. intay soo baxday waxay u timaaday iyadoo hooyadeeda kadib waxay ku dhehaysaa wiilka ayeeyada u tahay maanta anigoo gabar kale iga doorta ka waran. ayeeyadu waxay u sheegaysaa in wiilkeedu uu difaacanaya saaxiibadiisa. iyaduna waxay ku dhehaysaa anigana waxaa difaacanaya wiilkayga oo ah midka keliyahan dhalay. kadib iyagoo wada sheekaysanaya hooyada wax ku soo dhacayo waxay dhehaysaa waxaan hayaa qorshe aan ku tijaabinayo midaas inay wiilkayga daacad u tahay in kale. waxaana rabaa in wiilkayga uu indhihiisa ku arko qoftan inay keliya u socoto lacagta. waxay bilaabaysaa inay wacdo midkoo ay saaxiibo ahaayeen oo is yaqaaneen si ay qorshe weyn u diyaariso. midkii ay la hadlaysa waa kana si toosa gabadhii ugu imaaday wuxuuna bilaabaa inuu sheeko u bilaabo. laakiin iyadu waxay tusaysaa faraantiga gacanteeda ugu jira waxayna u sheegaysaa inay mar dhow guursanayso oo ka raali noqdo. hooyadiina waatana iyadoo maanta dhan joornaal isku qorinaysay oona meeshaan kala socotay waxaas. maalin kale iyadoo qorshe kala wadatay intay soo baxday waxay imaanaysaa gabadha gurigeeda. waxay ku dhehaysaa wiilkayga alaabtan u soo diyaariyey ee ugey waxaan rabaa inuu iska kay cafiyo. markii ay sii bixaysay si kasay lacag dhulka ugu tuurtay iyadoo rabta inay dabin diyaariso. hooyadeeda intii u timaaday waxay ku dhehaysaa midaas qorsheana u dhiga way ku dhacday muujeedida way qaadatay lacagtii aan dhulka ku tuuray.
iyada oo faraxsan iyo ayeeyada oo ka murugsan arrintaas ayaa hal mar albaabka lagu soo garaacay. albaabka markay furto nasiib xumadeeda waxay arkaysaa gabadhii oo u soo celisay lacagtii ay dabinka ku dhigtay. waxay weydiinay oo safarkaas dheer maxaa u soo gashay inaad lacagta aniga ii keento. haahay ku dhehaysaa waxaas familku isku sameeyaan. intaas kadib markii ay baxday ayeeyadu arrintaas way ku faraxday, waxayna gabadheedu ku dhehaysaa hadda waxaa loo baahan yahay inaad quusato. ugu dambeyn hooyadu waxay bilaabaysaa inay samaydo qorshihii ugu dambeeyey iyadoo midaan qado ku ballamisay. waxay ku dhehaysaa boorsadan u jeedid waxaa ku jiro lacag gaadhaysa $1 milyan ay qaado, wiilkaygina waxaa ka rabaa inaad faraha kala baxdo. iyaduna intay ku dhahdo ma waxay kula noqotay ina aniga igada karto ayay iyadoo xanaaqsan meesha isaga tagtay. siday u soo socotay si toosa midkii saaxiibkeeda ahay ugu timaaday, intay faraantigiisa dib ugu celisay waxay ku dhehaysaa arrintaa ma sii soco karto. sababtana waxay ku sheegaysaa inaysan hooyadiisa arrintaa ogoleen. intaas kadib midkan waa kana isagoo ka murugaysan qofka sidaas u galayo inay tahay hooyadiisa. maalin kale hooyadiis intay soo baxday gurigiisa ugu timaaday si ay cunno u siiso. waxay ku dhehaysaa aaway jijintii aan kugu dhahay ayeeyada u soo sameey. isaguna waxa uu sheegay inuu saaxiibadiis u soo dhiibay iyaduna ay u samaynayso. kadib hooyadu arrintaas markay maqashay intay xanaaqday waxay ku dhehaysaa sidee ugu dhiibi kartaa ka waran haddii ay xaddo. kadib intay soo baxday meesheeda si toos ugu timaaday maadaama ay taqaanay si ay jijinteeda ugu qaadato. waxay ku dhehaysaa isdeji aniga jijintaada maalan kaa xadin ee waa lagu samaynayo waatan ahay naga qabso. laakiin arrin la yaab leh hooyadu meesha ku ogaanaysa oo ah midaan inay leedahay kambaniga meeshan ku yaallo. kadib waxay taagan tahay makuu malaynayn inaad sidaas tahay, waxaa u malaynaya inaad wiilkayga lacagle u daba socoto. waxay ku dhehaysaa aniga wiilkaaga lacag ma u daba socon ee waa jeclaay adiga aan ugu soo degdegayso maahan. intaas kadib iyadu way iska cafinaysaa maadaama ay ka codsatay inay iska cafiso. intaas kadib hooyadu waxay dib ugu soo laabatay guriga wiilkeeda. markii uu weydiiyey waxa ay meesha ka samaynaysana waxay ku dhehaysaa waxaa rabaa inaad iska kay cafiso wixii aan kugu sameeyey oo dhan. isla markaasna haddana waxaa albaabka ka soo galaya midii saaxiibadiisa ahayd arrintaasna si kaliya laba ugu farxa. ugu dambayna muuqaalkan intaasoo ku ekaay ee hadda halkaa soo gaarta legnoosa. gabadhaana u jeediin waxay diiday ninkan oo faraanti u keenay inay guursato. kadib waxay dantu ku qasabtay inay ku biirto kuwa basketboolka ciyaaro oo foodadii ka bateen. ninkan markii uu faraantiga u keenay way ka diiday, laakiin wuxuu isku dayay inuu si xooga ugu geliyo meel agtooda ah kuwa ku ciyaaraya banooni ka soo baxsanaya kadib iyagoo ku soo duldhaca. midaana mashquulka seerka ay ka faa'iidaysatay kadib meesha dhan isaga carartay. waatana iyadoo isku dayaysa inay korto siliga banooniga meesha ay ku ciyaarayeen. kuwaan markay arkeen gabar garoonka soo koraysa iyadoo kasoo dhici rabtaa waxaa badbaadinayo iyaga tababarahooda, iyada oo ka codsanaysa inay caawiyaan midkan oo daba socday oona tartiibkiisa albaabka ka soo gala ka daba imaanayo. wuxuu ku dhaha gabadhaas ma u jeediiniyo aniga waa isguursanay marka noo hambalyeeya iyana soo fasaxa. intaasna wuxuu u raacinaa dhibaato yar lee dhexdeena taallo. macalinku wuu ka diidaya inuu ku soo wareejiyo kadib wuxuu weydiinaya haddii aad iga fiiri weyntahay maxaa u malaysaa inaa ka cabsanayo. isaguna waa kanahaya tartiibkiisa kuwii ardadiisa ahay oo ku soo fasaxa, iyaguna way foodaynayaan waxayna ka dhigayaan inuu meesha isaga cararo. intaas kadib macalinku iyada wuxuu ku dhahaa walwelin kuwaasaa waxay ku gey doonaan gurigaaga weliba si ammaan ah. laakiin iyadu waxay u sheegaysaa gebi ahaanba inaysan haysan guri ay leedahay ay dib ugu laabato. sidaas darteeda kuwii ciyaartooda ahaya waxay u soo raaceen gurigii ay ku noolaayeen. wax yar kadib macalinkaa imaanayo, iyadana intuu soo wado wuxuu keenaa qolkii uu isagu seexa jiray. furahu intuu ku wareejiyo wuxuu ku dhahaa caawa meeshaana seexane berri 12 bar markaa soo kacana waxaa ku wanaagsan inaad baxdo. subaxdii markii ay soo kacdo waxay arkaysaa kuwii ciyaartooyda ahayo sariirteeda kasoo buuxsameen. waxay ku dhahayaan waxaa kuu keena kafee maadaama nugu soo biirtay tiimkeenana aa ka mid tahay. mar kale waatana iyadoo maqneed oo guriga dib ugu soo laabatay waxayna arkaysaa arrin ka yaabisay. arrintaasna wax kale maahan kuwii ciyaartooyda ay dhan waxay soo qaateen faraantiyo waxayna rabaan mid ka mid a inay doorato. laakiin wax yar kadib kuwa meesha way isaga tegayaan kadib marka uu macalinkooda imaaday kuna qiiliyey. sidoo kale midaan gurigiisa uu ka soo ceeriyey iyaduna ma taqaana meeli aado waxay istaajisanaysaa taksi waddada maraaye. gaariga markii ay soo korto darawalka waxay u sheegaysaa inaysan aqoonin meelay aado. laakiin darawalku wuxuu ku noqonaa midkii ay markii koowaad ka soo cararaysay wuxuu ku dhahaa haddii aadan aqoonin meelay aado aniga aqaano. waxay isku dayaysaa mar kale inay fakato laakiin mar rabo midkan daaqadaha xirtay. isagoo raba gaariga inuu kaxeeyo nasiib xumadiisa wuxuu arkaa midkii macalinka ahayoo hortiisa taagan. kadib intuu soo dego labadooda waxay bilaabayaan inay isdagaalaan. midaana fursadaasay ka faa'iidaysatay gaariga intay gashay waxay kasoo degsanaysaa burus. midkii oo sii jeeday fursad ku heshay intay gadaal ka soo martay buruska madaxa ugu dhufatay. markii uu arka kuwan inay ka badan yihiin ayna ku goobanayaan meesha isaga cararaa weliba isagoo u booteynayo. kuwii ciyaartooyda ahayna waa kuwana iyagoo u qori tuurayo mid iyaga ka mid ah si ay uga dhigaan qoftaas inay isaga keligiis jeclaato. ugu dambayna muuqaalkan intaas ma ku ekeena qaybta labaad waa soo wadaa insha allah hadda halkaas soo gaarta legnoosa.